haddii laygu dhaadan jiray dharaarago baan ahaa dhaanta hees iyo ciyaar dhalintu ii tumi jireen dhulkaygow lay odhan jiray eegga waan dhalan rognahay dhirtaydaa wada ilmayn ciiduna way dhibibaysaa cirkuna dhibicdiisi diid adduunyadu dhaban ahayn ayay ii wada dhugtaan haweenaan dhimir lahayn caqligu ka dhufaanan yahay ayaa midba dhinac ila tago dhurwaaga sidiisi cunay way waxaan hadda waa Soomaaliya miya Soomaaliya والله Somalia dib baa ka taagan Somalia is a nation in crisis 20 sano 20 years bay qadca isku hayaan qad waa mid wax dila mid raba inuu wax dilo iyo mid wax dilay balaayo laakiinse awal iyaga istilaayay oo dhulkoodii gubaayay dhiigooda darooray sida daad mulacaleeyay iyo darxumada ku jiraan namaysa damqayno danteeda ku dhisnayd dhulkooda dihinka ah khayraadka la dangiga iyo kalluun baan daldalaayay eegase hawshu wayba durugto alqaacida ba ka dilaacday badina la soo dacay tallaahi wax dabeecad yaqaana oo naga daaha dhibkooda waa inaan u dirnaa nimanka dhibkooda batay moogta Soomaalida waa in hadda shaqo laga qabtaa saaxiga waa inay keenaan si weeyaan talow yaan u dirnaa oo siyaasadda Soomaaliya East Africa talow yaa yaqaana Mr. UN. Oh, Mr. Haile. Danano. I think English is English. How are you? I'm very well. How are you? Sorry. How are you? Very well. Kiyada Somalia dibata wujra burcad badeed mana hadal badan waa maqlay hadal badan ma aha tan waa dibkeedii ba badatayba silazii haye kiyada ma garatay adiga kiiska ma garanin adigu bal soo ka sheeg soo xaylamatid kiyada Ethiopia haye ki boqolaal sano gumaysi u yahay boqolaal sano gumaysahay haye kiyada dad uu gumaystay uu garanaya si wax loo maamulo gumays ba haye silazii ko kiyada tan Soomaali iyada iska si adaska ka siiya kiyada shaqo fiican ka qabtay waad ka shaqaynaysaa Soomaha si fiican okay min dino anta waxa weeyaan horta taariikhdaada waan haynaa waxa tahay nin Afrika oo madow oo caalamka taariikhda wadan kale oo Afrikaan gumayso horta waxa tahay kii ugu horeyso ma taariikhdaada ma socona asraas min 8 many years marka waxa weeye Soomaaliya adigaan ku dhiibaynaa wax allaala wixii aad u baahato na soo weydii diyaar baan kula nahay thank you waad gartay Soomaha thank you so much well done good job adam kiyada Ethiopia gaajo badan u jira dollar badan iska si mindina war hub iyo madfac iyo lacag iyo hilib iyo bariis intaba waa lagu siinay halkaas naga qabanayni ama sagnalo thank you walla kiyada Somali ما دولة كده وكيكيبي قولوا وسي من عين أتنا الناس الصومالي شرطاموج كده صومالي ما دولة ما كيب هلو واكو سلامي صاحب قال سلام كده الشيخ مهياي ومامل قبلات كود قرنيسا كده مامل أجرا شقف في عام وقفت مرة رواد لصعد صومه قبض يدا هو قرتي هاي waxaan doonayaa inaad wadanka aniga gacanta ii gelisid inteedii horena hor baan u haystay waad ogeed inta kalena waa ku keenaya waxa la wixii dhinacay kaliya ka imaado la socotaa kiyada 20 sano huraadinay hagee u joogay aniga gobolkayga maamulay meesha igu ogeed shaqafi aan waa qabatay halka ka sii wad kiyada Soomaali madax weyn u yahay waa mahadsan tahay qof kale maay adiga bas
laakiin hal shaka qabo kiyada ogaadeen naamna meelaha uu jooga soo qabo iska keen waxa la wixii kila ka imaado Soomaha shaqadeeda way taayada sidii hore waa garanaysaa gobas laakiin horena ii soo dhiib kisara jaad badan uu ku keenay salam you all right today maana anta sheek anigu waxaan ahay nin siyaasi ah siyaasi anigu siyaasadda adduunka oo dhan baan kala aqaanaa haye wax kula shaqayn kara anaa ka jira nimankan wax ma kala waa waxaan loo jooginay wadaan I know ani international law baan soo bartay international relations baan soo bartay adduunweynaha shir aan ka qayb galin malaha meel gobol aan madaxnimo isu sharxin malaha meel walba soo taagnaa abeet kiyada 20 sano uu raadiyay uu doondoonay xagee uu gabaday warniyo anu reer yaraan ka dhasho waa laga badan yahay waa laga xoog badan yahay shukr yelam kiyada Soomaali madaxweyn kazaare jamro kiyada Soomaali madaxweyn uu yahay laakiin hal shay ka qabo haye kiyada caalam iska sheeg Ethiopia gobas sax fiican yahay ki Soomaali nabad u siinaya Ethiopia marka hore waan taageersanaani hadda Soomaali igu soo wareejiso waxa ka soo horjeedo dhan ana igu ogta gobas kiyada kazaare jamro kiyada Soomaali madaxweyn uu yahay iska sheeg ayso aad baad mahadsantahay my brother gobas hata pat Hello, Mr. Bala. hello How are you? anta mana anigu waxaan ahay aqoon-yahan waxaan ahay jaamici waxaan ahay dadkii scholariska ah ee Soomaaliya adduunkan Bristroka Glasnost democracy dimuqraadiya ayaa ka socota kama socoto waxaan qabsaday almirqaan alhebel we don't know dadkaas marka aniga xaq u leeyahay hogaamiye meesha gobas kiyada gobas uu yahay kazaare jamro adiga Soomaali ki madaxweyn uu yahay iska shaqeyso thank you very much mana iska daaf adiga aqoonyahan uu yahay Fariid shaqeyso okay iska qabso shaqo aniga kaniniyo aha anta mana adeer aniga qabiiladan ka socda magaceeguna waa raamsade kiyada qabiil aniga qabiiladan ka socda aniga laandheerana waa ahaye cadaabo maxad ii wadaa adam kiyada ki Soomaali qabiil uu yahay kiyada Soomaali uu gartay qola weyn uu ka dhashaaday kiyada qabiil number 1 andanya waa tahay waa ahay ስለዚህ kiyada gobas weeye kiyada kazaare jamro adi bes Soomaali madaxweyn uu yahay dadka waxaan ka hor fadhiyo waa ummadeydii dadka aniga maamulaya magacaaga ha jiro magacaaga iska dhageyso ki Soomaali uu sheeg Ethiopia gobas uu yahay ya iska sheegayso horyaare wadageysta tii anigu marka hore aan u sheegay inteeda waan haystay maamulkayga kisteeda waa iyo gooneed maamul goboleedkayga intaan aniga lagu ogahay cid aniga kayna ma talinayso waxba haystalina iska hadlo inayga waxa weeye adduunkan waa laga ilbaxay maxaa yiraahdaa qabeel waa laga ilbaxay waxa oo dhan institution Bristroka Glasnost dimuqraadiyad baan aqoonyahan ahaan ku maamulaya meeshan aniga xaq u leh la ii daayo wariya constitution horta yaa ku baray dugsi sare maadan dhiganin markaas aqoonyahan isku tilmaamaysaa adiga meesha soo taagan maxaa meesha ku haysaa adiga is soo xariifiye kaabo iska soo dhigay war meeshan aqoon kama socotaan ku yiri saaxib aniga ina kayna ma talinayso kuridiina isku imaatay beeba isku sheegteen shaakadu qabiil bay ku bilaabatay qabiil bayna ku dambeynaysaa dadkiina ma jiraan wariyaa war anaga meel sunnah wadaadkan muxuu ahaa niyo عدو إله عدو الله بين بس الشيطان ووقت العلماء
kitaabka ilaahay baa lagu maamulay waddanku sidiisuba uma wajahdaan waddanka oo uu ku jiraa waddanka soo maragtaan kitaabka ilaahay baa lagu maamulay waddanka idinkana isdhaaf baa laydin goynayaa wabillaahi tawfiiq sheekh dhegeysa meesha quraan akhris waryahay ninkan la garay waa nin laareen dheera ah yaa reeygu uu ka dhashay wax uu ku helayaa anigana de adduunka laga yaqaan oo nin siyaasi baan aho de meel walba aan ka qayb galaa gobol walba waan soo sharaxa waa la ogyahay taas laakiin adiga intaad kitaab ku soo dabagabatay amaamad xun madax ku soo duwato meel aad keentay loogeyn waraa wadanka hadaa aan wax laga sino maamulin gabigiisa qaybteedan la goosan inta kalena badaan ku daray mujrim siyaasi wax soo bartay mati tahriiban meelaas ku tagtay soo wariya war aniga ma la ii deynayaa meeshan oo meedin hogaamiyaa haddaba intaydan qaadanayaa anigu horaan baa hadal idinku dhameeyay intayda waa haystaa inta kalena cid aniga hayn ma talinayso adeer yaalaata ay diidan bakoorad ismayna kaga shaqeyn intiina goosta aniga wadanka ana qabiil oo ana laan dheer oo haddii idin dhageysanin waxaan idin sheegay intaas qoorta xiskay maskaxda ka goosanaya qaf haddaba la idin waran hadal badan ahaan ma buuxsho haddaan xukunkeeda anigu haynayn oon anigu maamulayn intii horena waa haystay waxaan idin taa xibnahan ka jaraya oo xabaal baan ku riday anigu intaydiba cadow ilaah waan goosta weligii bogogaasta wax la goyni oo la taabani male inta tagtaabaan soo celinay kitaabka ilaahay baan ku wada maamulay dhammaantood idinkana isdhaaf baa idin wada jari allahu akbar hadda ma heshiiseenoo maanta dhan ma heshiiseeno ها وين هشينا bas maxaad ku heshiiseen إن أنا ولقي هشينا باكو هشينا nafta oo la dhiibiyo dhiigoo qulquliyo calankii dhibiyo way lagu soo dhidbee geesiyaal u dhiidhiyey iilka loogu dhoobee loo dheelmay aakhiro maciiduu dhex yaallaa war hasasini horaan u sasna annagu ee qarankii wakaase qarankii Soomaaliyeed jamhuuriyaddii calankii sharaftii dadkii baddii لا إله إلا الله محمد رسول الله الصوماليا سيدنا قدام بيس Soomaaliya arrintaas معكو قرن مدلكي يا ددكي يا بدي يا عيدمدي iyo daarihii iyo wadooyinkii iyo beerihii iyo tiyaatarkii iyo fanaaniintii baasaan ugu dambaysay calankii yaadkan arrinta waxaa saas u galay dal xoreeyo arrintii Soomaaliyeed maskaxdii qarankii baa sabab la geeyay ummadda Soomaaliyeed ninka maagiga badheed wadkaaga maleegaye adiga dacaan kuma gobin ee mindida kula goobaye ka didi magacaaga jira weliba muuqaaga nacab adoo ka maarmi kara maxaa kugu daray muraad maxaa muqdishadeennii wacnay malise masalaha u dhigay nin abwaana wuxuu yidhi waxaana daa'imkay arag duqna iiga sheekayn waa dad caqliga la daba wado oo dadku horreeyo caqliguna dambeeyo waa arrin cajiiba moogta ummaddan iyadu keensan ee kibirku aafayn ilaahay kadeed iyo ma bada keenan oo kale cudurkii kala loo cunaa dawo kaniinkeeda kaan karaha qabiilkan nasulay keena xarig dheere kolkaasay karaamadii luntii kaalin dawliye intii aan sidaa loo kan maray sharaftii kaarboodi laakiinse kolkoolintii kala jab soo muuqday abwaanadu kasbiya waana badan way ka tiriyeen ka daayay wax badan baanu nidhi eega kibirkaani ha yeeshee kir bay nagu dhaheen diidma kari waaye kawaanada dadka meedku yahay sida karoorkaas kursi doone kooxu watiye keligii noolaaday hadba kii wax haystaa ratibi koox dadlaysee kumayaala keebka hayoo kaga karsiiyaala kumayaala aan kala jeclayn kawsar iyo naarta kumayaalka bada dhiigga kulul waa ka aadmigee kuman dumaraho qaatilada soo horkacayaala kii qaatil oo dhanba haweenuba u sacbin haweenku kuma jirin maxaa ku dhacay wax kuman dumara oo qaatilada soo horkacayaala kun walba uu soo jeedan yahay ruuxu kadabkood kii qabiil u kaba qaadi jiray maanta keligii dhe
كرامية متكي ولي أها ما أنت كليد كتاب يمتكي دين يقين ما أنت كليد ويلا الكوحة كي هيسجري ما أنت كليد كرقاتي كي قري لها ما أنت كليد كراحيست باور كنتنا ما أنت كليد سومالي كذا كاقب صلي كلا شوف كاقاري عرب كي كوبكو بكركارك أفذي إلهي كتابك فرقان كيري وماضي آمين ودعيني ياي سفع لي لدعين إلهي كتابك فرقان كيري وماضي آمين أذا كامل يكبو أتكاني كونك يا مخلوق بأذا أمي كريجاي كشلي تضود يشب يوحي كذيت جاري بل إلهي كل كلا دون نقدان كسمة قراديش أما أي كل كلا دون نقدان كبا يروح هذا أما أي كل كلا دون نقدان دين تكرق هذا كالقعيل كي صومالي أضمن اسمه كيتو يعني إلهي كربة فيديو كامل آمين آمين يا رب يا رب ورامينينا يا رب أستر يا رب جلديga wuu qarxaya ummi baa ka baxay sharaxay aan sharaxo Soomaali waa hal cadowga waa hal amxarka aan ku dilo dhulkeena aan u diino dadkeena aan u diino dunyada aan u diino difaaca aan adkeeno caalanka aan ka taagno cabdi salaal caado dhulkeena aan xoreeno nacawda aan ku delo